بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada warka caalamka ee TV-ga Somali Cable. Hada iyo kale wuxuu idinka yimaadaa studio TV-ga magaalada Nairobi. Qodobada wararkeena ugu door karona waxaa kamid ah faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar sababay khasaaro nafeed iyo kuwa hanti oo ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho. Golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa kulankoodii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho waxaa looga hadlay weerar lagu qaaday goob maqaayad ahayd oo ku taalay degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda Soomaaliya waxa uu ka qayb galay shirka dib u heshiisiinta qaran ee ka furmay magaalada Muqdisho. Maamulka Galmudug ayaa waxay sheegeen inay gacanta ku soo dhigeen ilaa 14 ruux oo hole la xiriirinayo inay ka dambeeyeen weerar ka dhacay gudaha deegaanada Galmudug gaar ahaan kuwa lagu dilay dad halkaas ku sugnaa iyagoona baaq u diray beelo ku dagaalamaya gobolka Hiiraan iyo Galgaduud. Culimada diinka Ahlusunna wal Jamaaca ee ku dhaqan Soomaaliland waxay ka soo horjeesteen go'aankii madaxweynaha Soomaaliland oo guddi ugu magacaabay culimada diinka Soomaaliland. ciyaaro lagu tartamay caasimadaha wadamada ku yaala bariga Afrika oo ay Soomaaliya ka qayb gashay ayaa la sheegay in qaybihii ugu dambeeyay ee ciyaarahaasi lagu soo reebay kooxdii ku ciyaaraysay caasimada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. intaas daawadayaal waxay ahaayeen qodobada ugu door karoon warka caalamka ee TV-ga Somali Cable. u diyaar garooba haatan isaga iyo dhan balse aan ka hormariyo qadar yar oo xayisiisa. Assalamu alaikum. My name is Hussein, the director of Niels Furniture Design UK. We are known to be the leading Turkish quality and luxury furniture suppliers in the UK. And also, we are known for the good relations with the Somali community. Did you know that Niels Furniture Design has also helped Somali charities such as Ikhlas Foundation? If you want to contribute in our help to the Somali children in need, buy your furniture from Niels Furniture Design. And tell your loved ones and friends as well to do the same. Because what we take, we give back. Therefore, call the number below and tell us what furniture you need and we will be happy to help. See you soon inshallah. Assalamu alaikum. faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar xal lagu qaaday goob maqaayad ahayd oo ku taala magaalada Muqdisho kaasi oo sababay khasaarooyin dhimasho iyo kuwa dhaawac oo soo gaaray dadkii halkaas ku sugnaa. wariyahayaga Sayna Maxamed Aadan ayaa warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada Muqdisho. xilli la guda galay 10ka dambe ee bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa xalay fiidkii hore waxaa dhacay qarax inta badan laga wada maqlay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir. qaraxa kadib ayaa waxa ay dadka dhagahooda soo gaarayay rasaas u muuqatay mid la isweydaaranayo. weerarka oo xalay lagu marmay goobta rasmiga ah uu ka socdo ayaa waxay noqotay Pizza House oo ah goob lagu caweeyo dadkana ay u soo damaanshaad tagaan. sidoo kale Bosch oo ka soo horjeeda Pizza House ayaa iyaduna waxa soo gaaray burbur xoogan. ilaa hadda hay'adaha ammaanka ayaa waxay xaqiijiyeen in ay geeriyoodeen 18 qof oo shacab u badnaa uuna ku jiray nin ajnabi ah oo u dhashay dalka Suuriya kana shaqeynayay Pizza House. 17 kale ee dhimatay ayaa 9 ka mid ah waxay ahaayeen dumar. dhaawaca ayaa gaaraya ilaa 19. dhimashada iyo dhaawaca waxaa ku jira 3 gabdhood oo walaalo ah. 2 ka mid ah ayaa dhimatay halka gabadha kalena uu dhaawac soo gaaray. eheladii iyo waalidiinta dadka dhibku uu soo gaaray oo ku sugnaa goobta ayaa wajiyadooda laga dareemayay murugo. meedadka iyo dhaawaca ayaa lagu qaadayay ambalaas si dadka dhaawaca loola gaaro goobaha caafimaad. afhayeenka wasaaradda amniga Axmed Sayid Carab ayaa ka warbixiyay weerarkan la soo qaaday iyo khasaaraha uu geystay. ugu horeyntii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ma hadle waxa uu mahad celinaa ciidanka laamaha amniga dawladda federaalka Soomaaliya oo xalay ilaa saakay waa barigii soo gabagabeeyay kooxdii burcadiineedka shabaabka loo yaqaanay dadka shacabka baabi'iyeen ee ku baabi'iyeen hoteelada Muqdisho kamid ah hotel kamid ah waxa ku dhintay dad shacab ah oo 18 ruux ah oo hal ruux uu yahay Suuriyaan oo ka shaqeynaya maqaaxida 7 ruuxna ay tahay gabdho Soomaaliyeed oo muwaadiniin ah oo hotelkaas ka afurayay waxaan ku dhaawacantay 19 ruux oo shacabka Soomaaliyeed ah. cadowga wuxuu beegsanayaa ma aha maanta dawlad wuxuu beegsanayo
ma aha mas-uuliyiin waxay beegsanayaan ma aha ciidan waxay beegsanayaan cadow waxay beegsanayaan ummadda Soomaaliyeed jiritaankeeda inay baabiyaan rabaan cadowga meesha waxa ugu dhintay kuwa naftooda halligay oo 5 nin ah iyo naftiisa halligihii baawurka watay qarxa oo hoteelka la beegsaday kadaa'ibiin been badan waaye meelahay hadda ay ku jireen waa ogeedeen ma hoteelka ay sheegteen waa hotel kale ka soo horjeeda ayuu ahaa wax walba ay sheegaan taas ay u been badan tahay dhanka kale isbitaal Madiina ayaa waxa la gaarsiiyay dhaawacyo iyo meedad kala duwan oo xalay ilaa iyo saakay la geenayay agaasimaha guud ee isbitaal Madiina Maxamed Yuusuf ayaa ka sheekeeyay dhaawacyada iyo meedadka la soo gaarsiiyay isbitaalka isagoona xusay in ay jiraan dhaawacyo culus oo la soo gaarsiiyay isbitaal Madiina xalay fiidkii ayaa waxa la keenay dhaawacyo fara badan baryahan xoogaa amniga waa iska fiicnaayo dhaawacyada waa yaraayeen laakiin xalay qarax weyn dhacay marka isbitaalka waxa soo gaaray dhaawac oo ilaa 15 ah 15 kaasi to 8 dhaawacooda waxaa nasiib ahayd inuu yani dhaawac sahlan oo ahay waa baxeen markii la dhayay 7 waa la jiifiyey 7 la jiifiyey mid ka mid ah intii qaybta lagu jiray oo hawsha ay socotay maadaama yani dhaawacyo badan iyo dhibaatooyin badan ay soo gaareen meesha ku dhintay dhexda kale waa la jiifiyey waa jiifaan qaarkood qalimadooda xoogaa waa nugu culusaayeen laakiin waa ku guulaysanay marka dambe waa noo jiifaan xaaladoodana waa fiican tahay Bizo hoos ayaa waxa ay qayb ka tahay goobaha ay ku caweeyaan dadka sidoo kalena qaar ka mid ah dhalinyarada ay u soo tagaan in ay sawiro ku galaan Zeynab Maxamed Aadan Somali Cable magaalada Muqdisho shirkii golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya oo maanta la isugu yimid magaalada Muqdisho ayaa looga hadlay weerarkii xalay ka dhacay goob maqaayad ahayd oo ku taallay magaalada Muqdisho wariyahayaga Cabdicasiis Cabdullaahi Riyali ayaa magaalada Muqdisho warbixintaasi nooga soo diray shirka golaha wasiirada oo maanta ka qabsoomay gudaha magaalada Muqdisho ayaa waxa looga hadlay arrimo kala duwan oo ay qayb ka ahayeen tacsi loo dilay qaar kamid ah dadkii eheladooda ay ku waxyeeloobeen qarax iyo weerar isla socday oo ka dhacay Pizza House ee magaalada Muqdisho sidoo kale shirka golaha wasiirada waxaa lagu soo hadal qaaday miisaaniyadda iyadoo wasaaradda maaliyadda laga dalbay inay soo gudbiso miisaaniyadda dalka Soomaaliya wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya ayaana qaybaha warbaahinta la wadaagay qodobadii shirka maanta looga hadlay وممكن برضه سنة لا يضرب الشعب والمساكين السنة دي مركا أنت أصلا هو العملي والله بعدين لا يقولوا عملي سيد يقولوا عملي وزيد عن المهني أنت هذا الحين لا يقولي أنت المشروع هي اللي يقول هي تدور الوضع كم الأخلاق يقولوا يقولوا يسويوا على النظام لكن الله يقول كل شيء أخذت مني ويرك كيستي على أكثر من الأشياء مركا أو مستيجي توقف موجودة وحاول هذا يوم رسم الرئيس الدخل كان صحر كل عيا حتى وزارة المالية كان على خليها وزارة المالية بصوب الاكتئاب صحر وضيع عيا ما كان على وزارة وحكروا الأمر أمر الربيعين وأنصحيوها أنصحهم ما تمرهم شيء الحرشة وأنا استجدت في سنين هم تسمع سيدوا الدولة لا أي كم سيدوا الدولة وإسلام الله وحده ممكن لا أوكر لا ضوء إلا إجماع يعني كقلنا من الحرشة يقول تجسوا أما ما وجه حقيقة وحي كقلنا من الكاس سواء سيدوا أسبوع عند دي يعني وح ما يعني هذا كقلنا ما الوضع وحكروا السوق هندسة الشرعية دي على السوق يبغى وقت فورا ويهي وتقال أن الصومال سودا ويهي هندسة الشرعية كان الله يعشق عفمات الله وزارة عفمات كان وزارة محاكمة
wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda cadaaladda ayaa soo gudbiyey wadadaas. inta badan shirka golaha wasiirada ee dhaca khamiista ayaa waxaa looga hadlaa dhacdooyinka ugu waaweyn toddobaadka iyo waxyaabaha kale oo ay muhiim ku arkaan golaha wasiirada. cabdicays cabdulaahi maxamed, cabdicays hiili, Somali Cable, Muqdisho. hogaanka xisbiga wadani ayaa waxa ay shaaciyeen aragtidooda ku aadan khilaafka wadamada qaliijka sida warbixinta warkaasi magaalada Hargeysa inooga soo diray wariyahayaga Faysal Maxamed Aadan FIFA. kulamo isdaba jooga oo 48 saacadood ee laga soo gudbay gudaha Hargeysa ku dhex maray xubnaha hogaanka ugu sareeya xisbiga mucaaradka wadani isla markaana ku salaysnaa mowqifka rasmiga xisbigoodu ka istaagayo khilaafka xilligan ka taagan wadamada Khaliijul Carab ayaa gunaanadkii laga soo saaray warmurtiyeed. Cabdiqaadir Xaaji Ismaaciil Jidde, gudoomiyaha ku-meel gaarka xisbiga wadani, ayaa warfidiyaanka u akhriyay qodobada warmurtiyeedka ka soo baxay. xisbiga wadani wuxuu aaminsan yahay in la wanaajiyo xiriirka diblomaasiyadeed aynu leenahay dalalka aynu jaarka nahay, jaamacadda carabta, dalalka islaamka iyo guud ahaanba dunida kale aynu ka midka nahay. qarnigan 21aad dalalka adduunku waxa khilaaf ka dhex bilaabma waxay ku dhamaystaan wada hadal diblomaasiyadeed iyo nabad. Soomaaliland waxay dalalka Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo guud ahaan dalalka carabta la wadaagtaa xiriir ganacsi iyo walaalnimo oo taariikhi ah. wixii colaadana xal uma aragno dalalka islaamka dhexdiisa. isbeddelka diblomaasiyadeed ee adduunka ka soo cusboonaada waxa go'aankeeda iyo jihada loo raacayo uga mas'uula qaranka Soomaaliland madaxweynaha Axmed Maxamed Siilaanyo, isagoo ummadda uga wakiila inuu raadiyo kolba halkii danta qarankiisa ku jirto. sidoo kale waxa warmurtiyeedkan lagu xusay xiriirka qotada dheer ee ka dhaxeeya Somaliland iyo sidoo kale dawlad deegaanka Soomaalida dalka Itoobiya, iyaguna xisbigu ku baaqay in la sii xoojiyo isla markaana laga hortago wax kasta oo keeni kara isku dhac labada shacbiya laga fogaado. dhinacan kale dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo Somaliland waxa ka dhaxeeya dan, dad iyo dunyo. waxaynu nahay isku nool. wixii eeda ah iyo deelqaafna ah waxaanu aragnaa in laga daayo. ashkhaas dabadda ka hadashayna inay farageliso xidhiirka aanu leenahay deegaanka dawladda Itoobiya maaha. waxaanu leenahay safaaradaynu isdhaafsanay, waxaanu leenahay wasaaradii arrimaha dibadda wada xidhiira, waxa wada xidhiira wasaaradii arrimaha gudaha, waxa wada xidhiira hay'adii nabadgelyada, hadday ciidanka tahay, hadday booliiska tahay, hadday ciidamada sirdoonka tahay, intaasba wada xidhiiraan. marka xidhiidhada channelska rasmiga ah ayaa wixii madmadowga ay isu socodka iyo xuduudka ka yimaada ka mas'uulayna ka wada hadlaan. ee ashkhaas meelaha ka hadashay oo ama yani cod ku doonatay ama wax kale ku raadinaysaa inay farageliso maaha. waxaa sidoo kale isla warmurtiyeedkan lagu sheegay inaan xisbiga wadani u dulqaadan doonin in dawladda Soomaaliya mar kale lagu xoqo. waxa kaloo ayaamaan soo cusboonaya arrin la xaliyey oo ahayd in xisbiga wadani lagu xoqo Soomaali weyn. arrintaana waa ogeydeen arrintii fake news ee la sameeyey ee la yidhi madaxda xisbigu waxay la kulantay prime ministerkii hore ee Soomaaliya. waxaad moodaa maanta tii laga heshiiyey la yidhi aan la soo qaadin ee apology-na laga bixiyey in maanta warbaahinta xukuumaddu adeegsataa ay dib u soo cusboonaysiinayaan oo xoqayaan. haddii heshiiskaasi jabo way ka waantoobi waayaanna taa boqol waliba waxa xoqda way haysaa. annagoo u turayna annagu qarankan iyo dadkan iyo nabadgelyada iyo deganaanshaha waxaanu ku boorinaynaa xukuumadda Axmed Maxamed Siilaanyo garwaka ka yahay iyo saxaafadda adeegsataaba in arrintaa laga bogsaday aanay soo cusboonaysiin ee fake newska beenta ah aan cod lagu doonan. xisbigan wadani cid uga la jecel badan Soomaaliland ma jirto. bankan ka soo baxay xisbiga wadani ayaa ahaa mid si weyn looga wada dhuursugay maalmihii laga soo gudbay kadib markii xukuumaddu qaadatay aanay ku taageerayso nafada uu hogaaminayo dalka Sacuudiga. Faysal Maxamed Aadan, Faysal FIFA, TV-ga caalamiga Somali Cable, magaalada Hargeysa. ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu ka qayb galay shirka dib u heshiisiinta qaran ee ka soconaya magaalada Muqdisho. warkaasi waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaheena Cabdicasiis Cabdullaahi Reeyare oo magaalada Muqdisho nooga soo warrama. shirka dib u heshiisiinta qaran oo muddo 3 maalmood ka socda gudaha magaalada Muqdisho maanta waxaa ka soo qayb galay ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre.
wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Cabdi Faarax Juxa oo shirka intii uu socday goobjoog ka ah ayaana ka warbixiyay muhiimadda shirka iyo maalmihii uu socday waxyaabihii uu qabsoomay sidee looga heshiin karaa halkan waxa isku yimi wasbi ama ergooyinka kala socda dhammaan dalka Soomaalida nidaamyadiisa qaybaha kala gudbisan ee bulshada waxaa laga soo jeediyay meeshaan waraaqo kala gudbisan oo dad shaqeeyaan oo barnaamijyada la xiriira ay soo jeedinayaan dadka socotay shirkan lagu soo xiri doonaa Sabtida waxaan jecelahay in noqdo shir aad iyo aad wax ku ah oo wax ka tara geedi socodka nabadda ee Soomaalida Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo shirka ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in muhiimad ballaaran ay leedahay nabadda isagoo sheegay in dadka Soomaaliyeed loo baahan yahay inay ka shaqeeyaan nabadda si Soomaaliya mar kale aysan u kala tagin oo ay horumar u gaarto maanta waxaad ugu timaadeen inaad raacdaan la fadhiistaan ka shaqeeyaan sida loo gelin lahaa khilaafka ummadda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed oo ku dhaqan meel walba oo dalkan ka mid ah ma haystaan عدة وحسكوها يستطيع أن أفتهم لا أنا خلاف مكبحة وهدوه الجلة وضبك هيكم كبيرة والملاحظة قرنك وحساسينك وضبك إليك هو أنك مصرية أما كان حساسها هاتو أما هاتو ملاحكرة مثل سنين الهلام وضبك يمينك قال كعيد جوكتا عمك اسماعيل جوكتا من نوع جوكتا بدأ اسمه قوانا اسمه هذا هذا من هو بل كلهم هو أمر الله إلا أن يشيف هذا والروان والدين والكتب أدى إثبات الدولة عملها أدى لغلنا يشيف سبت كان في الوقت وعنها لنا عملها muddadii saddexda maalmood ee la soo dhaafay ee shirku ka socday magaalada Muqdisho waxa ka hadlay xubno ka socday labada gole ee dawladda qaar kamid ah maamul goboleedyada madax ka socotay iyo qaybaha bulshada rayidka ee Soomaaliya Abdicays Cabdullaahi Maxamed Abdicays Riili Somali Cable Muqdisho ciyaartoy Soomaaliyeed oo ku ciyaaraysa magaca magaalada Muqdisho ayaa waxa lagu soo reebay ciyaaro ka soconayay magaalada Nairobi kuwaas oo ahaa ciyaaraha basketballka loo yaqaano ay ku tartamayeen caasimadaha bariga Afrika wariyahayaga Cabduqaadir Jijiila ayaa warbixintaas eegaya ciyaartoydan kubadda gacanta ee Soomaaliya oo ka badisay Jubba iyo Bambaaso oo kala matalayay Kenya iyo Soomaaliya ayaa habeennimadii xalay ahayd waxa ay fowda isdareen Muqdisho iyo Kampala oo kala matalayay caasimadaha Soomaaliya iyo Uganda ciyaartoydan kubadda kolayga oo ahayd mid ay ku tartamayeen caasimadaha bariga Afrika ayaa xalay waxay ahayd semifinalka ciyaarta kubadda kolayga waxaana afka ciida loo daray kooxdii ku socotay magaca Muqdisho oo looga adkaaday 75 gool halka Soomaaliyana ay heshay 43 gool ay magacaaga iyo tiimka u ciyaaraysa magaca xawaali liibaan cabdi iyo tiim Muqdisho oo ciyaara ay bal ka waran in guul daradiisa wajahday saddexda ciyaar aad soo kala badeen maxay ku kala duwaneed wanaga xoogeen you know they're stronger than us that's it they're Muqdisho ka imaadeen walin karaayay maxaa dareentan markii lin karaayay sad you know ciyaartay noo soo bandhigeen wiilasheeni ciyaar fiican bay ahayd laakiin ciyaarihii laba game oo isku xigtay bay ciyaareen wiilal Soomaan bay ahaayeen marka ciyaartii saddexaad habeenkii saddexaad isku xigtay bay ahaayeen ayagoo Soomaan bay ciyaareen laakiin nasiib wanaag ma badinin laakiin saasay tahana waa ciyaal ku soo tababartay Mareykanka ka yimid Mareykanka aad bay ciyaar wanaagsan bay noo soo bandhigeen wiilasha Hanad Liibaan wiilkii Cali la dhahayo Mustafa Magaciisa Soomaalina aad bay ciyaar fiican bay ciyaarayeen waxa kamid ahaa wiil kamid ciyaartoy hadda ka hor halkan ku ciyaaray wiil Soomaaliyeed oo markaa ciyaarahay maanta wiilkiisa ayaa maanta ciyaaraya bal ka waran ciyaarta iyo sida u dhacday ciyaarta inkastoo on laga badiyay I believe isfaana u dheelay insha Allah next year waa soo diyaarnayna we'll come back a little bit tougher inaad guul dareysataan in maxay ka dhigan tahay wallahi waxbay noo tahay waxa u dheelin Soomaaliya u dheelay dadkeena u dheelin short aan noqone laakiin insha Allah waxa u dheelina third place at least hal koob keenana in kooxahan hadda aad soo xusheen in Muqdisho matalayeen in asalkooda tababar fiican u soo siisay wallahi time yara haysane one week iyo xogaa ilmaha badan waxa ka amaadeen Mareykanka soo time badan mehin aad baad u mahadsantahay kaasi waxa uu ahaa tababaraha kooxda Soomaaliyeed
ee ku dheelaysay magaca muqdisho isla markaasina looga adkaaday ciyaartii gacanta ahayd ee lagu ciyaarayay Nyayo Stadium ee magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya mid kale oo shacab Soomaaliyeed ayaa agteeda taagan wuxuu ka warbixinayaa dareenkiisa iyo guuldaradii Soomaaliya ku dhacday bal ka war bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum marka hore waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay ciyaarta ka dhacday garoonka Nyayo Stadium oo iska hor yimaadeen labada magaalada Muqdisho City iyo Kampala City dareenkayga haddaan ka hadlo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay qaab ciyaareedkan soo bandhignay anagoo ah Soomaalida ku dheelaysa magaca Muqdisho City ciyaartu waxay u baxdaa in laga badiyo inaad badisid ima la hore aan soo badino laba geem Abduqaadir Jiijile Somali Cable TV Nairobi qayb ka mid ah culamaa u diinka Ahlusunna wal Jamaa ee Somaliland ayaa waxay ka soo horjeesteen guddiga dhawaan uu magacaabay madaxweynaha Somaliland kuwaas oo magacaabay culamaa u diinka Somaliland wariyaha Ciidarus Cabdullaahi Birshe ayaa warbixintaasi nooga soo diray magaalada Hargeysa iyadoo dhawaan ay ahayd markii madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo uu magacaabay guddi ka kooban culimo oo ah 12 ayaa waxa si weyn uga soo horjeestay culimada Ahlusunna wal Jamaa kadib shir ay ku yeesheen gudaha magaalada Hargeysa kaas oo ay ka qayb galayeen culimo kamid ah Ahlusunna wal Jamaa oo ka kala yimid dhammaan gobolada kala duwan ee Somaliland waxayna shirkaasi ka soo saareen bayaan ay ku qaadacayaan guddidaasi iyagoona madaxweynaha Somaliland xukuumaddiisa golayaasha guurtida wakiilada bahda garsoorka iyo dhammaan shacabka Somaliland ka codsaday in si cadaalad ah loogu qaybiyo culimada Ahlusunna wal Jamaa ee dalkan Jamhuuriyadda Somaliland annagoo ah culimada ka soo qayb qaadatay halgankii iyo dib u xoreyntii dalkan annagoo ah culimadii geeskan ku magaranaysa Allahumma salli ala culimadii geeskan ku noolaysay ee ku fidisay diinta Islaamka gaar ahaan geeyiga Soomaalida degto annagoo ah culimada aan lagu baran loolanka siyaasadeed iyo ka horimaanta ka xukuumadaha annagoo ah culimo ka fog fikirka xagjirka iyo kala qaybinta bulshada reer Somaliland annagoo magaranaysa ah culimada xaq u lahayd in lagala tashado masiirka diimeed ee dalkan iyo dadkan waxaanu si buuxda uga soo horjeednaa magacaabida 12 wadaad ee dhawaan la magacaabay annagoo ku diidan qodobadan hoos ku xusan in aanay waafaqsanayn dastuurka dalka Jamhuuriyadda Somaliland tiro ahaan iyo shuruud ahaanba 2 in aan lagu qaybin si cadaalad iyo sinaan balse ay yihiin koox kaliya 3 in ay ka mid yihiin rag xambaarsan fikradaha xagjirka ah 4 in aanay matali karin madhabkii iyo caqiidada dalkani lahaa 5 in aanay ku habboonayn magacaabidoodu marxaladan kala guurka ah ee dalku ku jiro haddaba markaanu eegnay qodobada kor ku xusan waxa noo cadaatay in aanay keeni karto arrintaasi magacaabidoodaasi burbur iyo khilaaf diimeed oo keena cawaaqib xumo ku keena dalkan fayeenka culimaa u diinka Ahlusunna wal Jamaa Sheekh Axmed Caabi Cabdi iyo qayb ka mid ah culimaa u diinka Ahlusunna wal Jamaa oo si wada jir ah ula hadlay telefishinka Somali Cable waxay faahfaahiyeen shirkani iyagoona madaxweynaha Somaliland ugu baaqay inuu guddidaasi ka noqdo shirkii maanta culimadu qabsatay maanta oo bisha Ramadaan ay 20 tahay taariikhda hijriyada 1438 waafaqsan 2017 bishii 6 waxaanu ka hadlaynaa 15keedii waxay ka hadashay maanta culimadu intan kadiska ahayd madaxtooyada inaga timi 12 culimada madaxtooyada waxaa lagaga dhawaaqay 12 wadaad waxaan u aragnay inay sharci darro tahay qodobka labaad qayb golaha guurtada iyo qayb golaha wasiirada ba iska kaashanaya oo qayb walba jamac tahay jamacna de 3 ba ugu yar kolka wax hoos ahaan loo waday ayaan u aragnay macna weyn bi sameynayaan 12 kani in waxay ka dhigantay in la ilaa wixii wadanku ku soo dhaqmay oo dhan waa laga tagay wadanku Soomaalidu ka jad Islaam bay 100% Islaam bay shawaaficeed wixii lagu soo dhaqmay baadil baa bay ka dhigantay kolka wax la qaadan karo maaha 2 oday baa lagu daray 2 wadaad oo waaweyn waxaanaan ugu baaqaya 2 wadaad inay iska casilaan
bisha Ramadaan markay dhamaato lixda Shawwaalkana la soomo waxaan isugu yeerinaa culimada gobolada oo dhan way kaxsan yihiin la soo hadlayaan laakiin waxaan rajaynaynaa madaxweynuhu waa nin taariikhi inaanu in waxaan hoos dhigay un baan u aragnaa cid gaar ay wadatay beentuna lug kaliya ay leedahay lugta marka la qabto bay maartay way istaagta marka waxaanu rajaynaynaa in arinta barta lagu dafiyo oo la joojiyo oo xilligan ka waasaxsan ama tartan loo galo wixii ama si cadaalad loo qaybsado hareeraha laga soo fadhiisto la isugu yimaado golayaasha isugu yimaadaan kolka asilo dhulka la dhigo qodobkan diinta ka hadlaya waa qabyo madhab lama magacaabin lagu dhaqmayo hala dhamaystiro kadibna si wada jir oo caadiya ha loo magacaabo wadaadada caadiga ah madaxweynaha arrintaa hadday kaa hoostayna dib uga noqo haddii aad u badheedhayna ka noqo waayo dalku uma baahna khilaaf diineed dibna loo soo magacaabo waxay Duruus Cabdillah Ismaaciil Beershiya telefishinka caalamiga ee Somali Cable Hargeysa aqoon-yahano bartay sida cadceedda looga dhaliyo tamarta ayaa waxaa tababar loogu soo xiray magaalada Garowe wariyahayaga Ayuub Cabdikariin Cali ayaa warbixintaasi nooga soo diray magaalada Garowe